بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي soo dhawaada dhammaan bahda jecel waxbarashada gaar ahaan ardayda form 4ka heerwejo ardayda Soomaaliyeed waxaan idin leenahay soo dhawaada maanta waxaan bilaabi doonaa jabtarkeedii koowaad maadada chemistry-ga kalaaska form 4ka hydrocarbons ugu horreyn waxaan sameeynaa introduction of hydrocarbons inaan soo bilowno kabacdi aan ku soo xijin markaas wixii hawlihii kalsiyo oo hoos tagi jiray branchka tagi jiray ka waran waxaan ku hormarinaa hydrocarbons maxaa la hydrocarbons intaan ogaanin ka hor waxaan rabnaa inaan sheegno hydrocarbons asalkiisa intuu ku imaaday hydrocarbons asalkiisa wuxuu ku imaaday wax la yiraahdo branches of chemistry laamaha uu leeyahay chemistry-ga branches of chemistry waxaa loo qaybin jiray 5 qaybood waxaa la jiray physical chemistry organic chemistry kisda hadda waxaan leenaa inorganic chemistry kii shanaad waxaan leenaa analytical chemistry kii shanaad waxaan leenaa biochemistry okay hydrocarbons markaas waxaan xoog u saaraynaa inaan ku barano laantan loo yaqaano organic chemistry waxaan ku bari jirnay is the study waa barashada of hydrocarbons compound organic chemistry waxaan ku baranay markaas the study of hydrocarbons compound hydrocarbons kan waxaan ku soo dhaadhnay aan ku keenay waa barashada hydrocarbonada waxaan hadda qeexi doonaa markaas aan isku dayi doonaa inaan qeexno hydrocarbons maxaan leeyahay hydrocarbons waxaan ku qeexaynaa waa barashada compound yada hadii aan soo dulmarno waxaan leenahay organic chemistry maxaa la organic chemistry waxaan leenahay the study waa barashada of hydrocarbons compound isku dhisyada ay leeyihiin hydrocarbonada inta gudgin waxaan rabnaa inaan qeexno wax la yiraahdo compound maxaan leenahay organic chemistry aan qeexnay organic chemistry waxaan dhahnay waa barashada hydrocarbonada hydrocarbon markaan qeexno compound had maxaan leenahay compound asalkiisa aan qeex maxaan leenahay compound waxaan leenahay is the substance compound waxaan leenahay is the substance waa walax that contain taasoo ku kooban markaas two or more elements labo iyo wax ka badan elementiyo organic compound waxaan leenahay the substance waa walaxyo that contains taasoo ku kooban markaas two or more elements labo iyo wax ka badan elementiyo next waxaan ku xijinaa markaas hydrocarbons maxaan leenahay hydrocarbons maxaan leenahay is a compound waa isku dhis hydrocarbons waxaan leenahay is a compound waa isku dhis inay isku dhistahay waxaan ku fahanay laba element ku kooban labada element waxay yihiin carbon and hydrogen koodii markaan sheegayno waxaan dhahnay compound waxaan dhahnay is a substance waa walax that contains walaxaas ku kooban markaas two or more elements labo iyo wax ka badan elementiyo labada element waxay yihiin markaas carbon and hydrogen iyo carbon waxayna compound ay hydrocarbons hadda aan qeexno markaas jabtirkeena koowaad is a compound waa isku dhisyo that contain isku dhiskaasoo ku kooban kaasoo ku kooban markaas two
elements laba elementiyo two elements laba elementiyo labadaas element waxa kala carbon and hydrogen hydrogen only waxay koobi markaas laba elementiyo labada element waxa kala carbon iyo hydrogen only labadaas ay koobiin aan ku celino waxaan dhaanay organic hydrocarbons waxaan ku barnaynaa waa barashadaas oo lagu barnaa markaas hydrocarbonada ama carbon iyo hydrogen lagu barnaa sidoo kale hydrocarbons asalkiisa waxa lagu keenay dhaanay waa branches of chemistry waxa loo qeybin jiray 5 qaybood waxaan ka dhigi jirnay organic chemistry inorganic chemistry physical chemistry analytical chemistry biochemistry intaas waxaan soo sheegnay markaas branch of chemistry sidoo kale organic chemistry waxaan ku qeexaynaa is the study waa barashada of hydrocarbons compound ay compound maxaa la is a substance waa walax that contain kaasoo kooban markaas two or more elements labo iyo wax ka badan elements ay kooban sidoo kale markaas maxaan qeexaynaa hadda hydrocarbons waxaan dhigna is a compound waa isku dhis kaasoo that contain kaasoo kooban markaas two elements laba elements iyo maxaa leedahay carbon and hydrogen sidoo kale waxa kale ku qeexi kartaa hydrocarbons waxa kale dhigi kartaa soo gaabsi kartaayo is a compound waa isku dhis that contain kaasoo kooban markaas kaasoo kooban hydrogen and carbon bes inta ku qeexi kartaa waxa kale dhigi kartaa hydrocarbons is a compound waa isku dhis that contain carbon and hydrogen sidoo kale hydrogen and carbon mis waxa kale dhigi kartaa waa dheeraysan kartaayo is a substance waa is a compound waa isku dhis kaasoo kooban markaas laba elementiyo labada element maxay kaliin carbon and hydrogen aan dheena meeshaas waxa uu baahan markaas introduction of hydrocarbons waxaan galeynaa markaas classification of hydrocarbons sida loo kala saaro hydrocarbonada hydrocarbons waxaan u kala saaraynaa classification kooda markaa sameeynayno ilaa iyo 3 qaybood loo qaybiyaa hydrocarbons classification kooda waxaa loo qaybiyaa 3 qaybood waxaan leeyahay classification of hydrocarbons markii la kala bixinayo markii aan joogno boundiskooda dabaradooda markaa joogno waxaa loo qaybiyaa hydrocarbonada boundiskooda markaa joogno waxaan leenahay markaas according to anoo u fiirno or based on anoo ku saleynayno boundis dabaradooda meeqa loo qaybiyaa markaas hydrocarbonska markii dabaradooda aan ku saleynayn meeqa loo qaybiyaa laba qaybood loo qaybiyaa meeqa loo qaybiyaa laba qaybood labada qaybood maxaan ka leeynaa saturated iyo kii kale maxaan leeynaa unsaturated sidoo kale saturated kan uu kala qaybsamaa hor saturated ka markaa qeexayno waxaan leenahay saturated waxaan leenahay is a hydrocarbons compound that contain single bond hal dabaray leeyihiin halkoo dabar waa ka saturated that contain single bond hal dabaray leeyihiin sidoo kale saturated kan haddii la kala qaybiyo wuxuu qaybsamaa hal qaybood asan hal qof oo saga maxal kala alkane aan dheena sidoo kale saturated kan waxa kale ku magacaabi karnaa alkane aan dheena unsaturated kan asan aan qeexno unsaturated waxaan qeexaynaa is a hydrocarbons compound that contain waxay ku kooban yihiin double or waxay ku kooban yihiin markaas triple bond or waxay ku kooban yihiin double bound or mis waxay ku kooban yihiin triple bound waxay ku kooban yihiin laba dabar ilaa 3 dabar ay ku kooban yihiin unsaturated waxaan leeyahay is a hydrocarbons compound that contain double or triple bound ay ku kooban yihiin sidoo kale unsaturated ka uu kala qaybsamaa meeqa uu qaybsamaa laba qaybood uu qaybsamaa unsaturated meeqa uu qaybsamaa laba qaybood maxaan ka leeyahay alkene iyo alkyne maxaan leeyahay alkene iyo
alkyne aan dhehna sometimes buugta qaar waxay u qaybiyaan alkyne iyo aromatic ay ku soo darayaan so hadda waxaan raynaa qeex markaas alkene maxaa la alkene ka bilowno alkene waxaan dhehna is a saturated hydrocarbons compound that contain wuxuu ka kooban yahay single bond hal dabar ay leeyihiin alkene maxaan dhehna is unsaturated hydrocarbons compound that contain wuxuu ka kooban yahay double bond alkyne maxaan dhehna is unsaturated hydrocarbons compound that contain maxay ka kooban yihiin triple bond saddex dabar ay leeyihiin soo dulmarna fiiri classification of hydrocarbonada meeqa loo qaybiyaa hydrocarbonada waxaa la kala qaybiyaa ilaa saddex qaybood loo qaybiyaa qaybtii koowaad markaan marayno based on bounds dabaradooda markii lagu saleynayo laba loo kala qaybiyaa maxaan dhehnaa saturated iyo unsaturated aan dhehnaa saturated waxaan dhehnaa is the hydrocarbons compound hydrocarbonadaasoo that contain ay koobi markaas single bond hal dabar ay leeyihiin means way dirigsan yihiin waay unsaturated ayagana maxaan leenahay is a hydrocarbons compound waa hydrocarbono that contain kuwaasoo kooba markaas unsaturated markay tahay double or triple bond ay koobiyiin unsaturated markuu kala qaybsamaa meequu qaybsamaa laba qaybood maxaan leenahay alkene iyo alkyne aan leenahay alkene markaan qeexayn maxaan leenahay ustaad is unsaturated hydrocarbons compound that contain double bond ay leeyihiin alkyne maxaa leenahay is unsaturated hydrocarbons compound that contain maxay koobiyiin triple bond ay koobiyiin kaas waxaan u bixinaa markaas classification of hydrocarbons based on anagoo ku saleynayna markaas bounds dabaradooda anagoo ku saleynayn sidoo kale waa la kala qaybiyaa hydrocarbons sidoo kale waa la kala qaybiyaa waxaa loo qaybiyaa mid kale based on anagoo ku saleynayno structure qaab dhismeedkooda oo fiirneen structure-kooda oo fiirneen structure-kooda markii loo fiirnaayo laba loo qaybiyaa ayagana hydrocarbonska structure markii loo fiirnaayo kii koowaad wuxuu ahaa based on bounds dabada oo fiirnay kii labaad waxaan fiirnaynaa based on structure qaab dhismeedka oo fiirnaynaa qaab dhismeedka oo fiirnay meeqa loo qaybiyay laba qaybood hydrocarbonska maxaa kala la cyclic hydrocarbons iyo acyclic hydrocarbons waxaan sii gudgelaynaa markaas cyclic hydrocarbonada waa la kala qaybiyaa meeqa loo qaybiyaa waxaan dhehaynaa cyclic hydrocarbonada laba u kala bixinaynaa anagoo u bixinayna markaas cycloalkane aynu dhahno iyo aromatic anagoo u kala bixino aromatic markaa joogno waa la kala qaybiyaa waxaa loo qaybiyaa laba qaybood waxaan dhehaynaa laba qaybood loo kala qaybiyaa labada qaybood maxay tahay benzenoid iyo non benzenoid aan u kala qaybinaa waxaan u qaybinaynaa benzenoid iyo non benzenoid maxaan dhehaynaa waxay ku kooban yihiin benzene ring yaa ku dhex jiro benzenoid waxaan dhehaynaa is the aromatic hydrocarbons compound that contain waxay ku dhex jiraan benzene ring wareega ku dhex jiro oo benzene ring yaa ku dhex jiro benzenoid wareega ku dhex jiro kan non benzenoid maxaan dhehaynaa is a hydrocarbons compound that do not contain non benzene ring ma ku dhex jiro ayagana sidoo kale hydrocarbons waa la kala qaybiyaa based on kii saddexaad waxaan dhehaynaa anoo ku saleynayna markaas sources ilahooda anoo ku saleynayna waxaan ku saleynaynaa sourceskooda lagu saleynaa ilahooda markaa lagu saleynaya waxaa loo qaybiyaa ayagana laba qaybood waxaan dhehaynaa aliphatic iyo aromatic iyo aromatic loo kala qaybiyaa alifatigan uu kala qaybsamaayo wuxuu noqonaa saddex qaybood waxaan dhehaynaa alkene iyo alkyne ayuu noqonaa alkene aromatiga marka uu kala qaybinayna ayagana way kala qaybsamayaano waxay u qaybsamaan laba qaybood waxaan dhehaynaa benzenoid iyo non benzenoid uu qaybsamaa benzenoid ka marka qeexaynu waa soo sheegnay oo wuxuu ku dhex jiraa benzene ring uu leeyahay non benzenoid maxaan dhahnay do not contain non benzene ring uu koobayaa intaas wuxuu ahaa markaas introduction definition of hydrocarbons ka sidoo kale waxaan soo sheegnay hydrocarbons asalkooda ay ka yimaadeen branch of chemistry laan loo yaqaano organic chemistry waxaan ku qeexnay the study of hydrocarbons compound sidoo kale hydrocarbonada marka la kala qaybinayo saddex qaybood laba qaybood loo qaybinayo saddex process uu maraa process koowaad waxaan dhehaynaa classification of hydrocarbons based on waxaan dhahnay bounds dabaradooda ku saleynaa based on bounds dabarada marka lagu saleynayo laba loo qaybiyaa waxaan dhahnay saturated iyo unsaturated
basic on structure ko marka uu qaybinayno laba loo qaybiyaa cyclic iyo acyclic oo qaybinaa ay basic on oo qaybinaa markaas source ko maxaa loo qaybinaa saddex qaybood aliphatic iyo aromatic oo qaybinaa aad u maasantihiin sida wacan oo wanaagsan aad noo dhageysateen si qurux badan waa idin sugeynaa insha Allah waxaan idin rajaynaa like iyo share intaba inaad noo wada dhaadaan hada billahi tawfiiq assalamu alaykum warahmatullahi